السلام عليكم ورحمة الله. maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay maxaa la dhahaa sida loo joojiyo ka fikirka dadka kale waxay ay ka aaminsan yihiin. macnaheedu sida niyadaada loogu saaro dadka kale waxay ka aaminsan yihiin. imisa mar inaa wax samaysa isku dayday laakiin dadka kale waxay ku dhihi lahaayeen ka fikirtay. imisa mar ay is dhahday kan samee kan samee kadib marka u dhaqaaqday ku fikirtay dadka kale waxay ka aaminsan yihiin. soo maanta waxaan ka hadlaynaa arrintaas sida loo joojiyo. aniga nolosheedu dhan waxa jeclaan jiray inaan dadka raali geliyo, inaan dadka macnaheedu waxay ku faraxsan yihiin sameeyo, labiska dadka ay jecel yihiin sameeyo, sida dadku u labistaan oo labisto, sida macnaheedu dhalinyarta ay sameynayso inaan sameeyo. marna iskuma dayin inaan different ahaado, qof gooni ahaado oo sidii aniga leeyahay u talagalay inaan ahaado. ilaa qof walba si ayaa loo uumay. ninkan jir gooniya ilaahay siiyey, adiga jir gooniya ilaahay ku siiyey. ninkan maal gooniya ilaahay siiyey, adiga maal gooniya ilaahay ku siiyey. soo marka hadda isku daydid inaan ninkaas oo kale noqotid ama qofkaas oo kale noqotid, waliga ma noqonaysid, laakiin wax god ayaa ku dhacaysaa. maanta waxaan ka hadli doonaa sida loo joojiyo arrintaas. midda koowaad waxaa la rabaa inaad aaminsan tahay ruux gooni inaad tahay, ruux dadka ka doonaya inaad tahay. shantan furood ilaahay ma simin, soo sida uu rajeynaysa inuu dadka dhan sinaadaan. soo marka waxaa ku dhihi lahaa qof gooni inaad noqotid, qof macnaheedu wuxuu uu sameynayo sir ay u yihiin, macnaheedu qof asiga la copy garay inaad noqotid. ma aha inaad dadka waxaa la dhahaa dadka raaco waxaa waaye sida ariga kale. ariga hal kan ugu weyn hadduu meel baxo kuwa kale way daba kacayaan. soo marka noloshaada iska leh, different noqo, dadka qof ka duwan noqo, wixii lagugu talagalay samee. taa micnaheeda ma aha inaadan dad kale wax ka baranin, inaadan wax kale dadka faa'iidin. micnaheedu waxaa ka wadaa at least qof waxaa noqotaa wixii loogu talagalay inuu sameeyo. haddii aad isku dayid inaad maantana qof raali garaysid ama qof copy garaysid, waxaa waaye god ayaa ku dhacaysaa, mana meel ma gaaraysid. midda kale haddaa ka fikirtid maanta dadka waxay ku dhahayaan oo ku dhahaan, tusaale ahaan anaa usoo qaato, markaa training bilaaway, gymka bilaaway, qof walba wuxuu lahaa gym meel ma ka gaaraysid, dad wax uma saacideyn karaysid, youtube inaa furatid qof wax mu qaban karaysid, channelkayga kala fitnesska maanta ilaa 3,000 wuxuu maraa 400 subscribers. imise qofaa saacideeyay, imise qofaa maanta i dhaheen message maalin walba iisoo dhaco, videogaaga wax ayaa ka faa'iiday. soo maalinkii dadka ay dhahayeen youtube-kaaga meel ma tagaya ama fitnesska waxaan dadka awoodid meel ma tagayaan, haddii aad maalinkaa hal tilaabo gadaal noqon lahaa ka waran, haddii aad dadka warkooda dhegeysan lahaa ka waran, maanta intaasoo qofood ma saacidi lahaa, maanta intaasoo qofood wax mu qaban lahaa waa may, ana nafsadeeda wax mu qaban lahaa waa may. soo marka waxaa ku dhahayaa waxaa noqotaa qof wax uu sameynayo og, qof wax uu sameynayo dadka daraadood aan u sameynayn, status u sameynaynin, dadka waxay dhahaan aan u joojinayn. soo marka waxaa ku dhihi lahaa qof gooni noqo. stepkood waa ka stepka labaad waxaa waaye inaad joojisid ka fikirka dadka waxay ku dhahayaan. intaa nooshahay 500 oo eraya maqlaysa, intaa nooshahay intaasoo eraya maqlaysa, maalin walba meeqa eraya la kulantaa, maalin walba meeqa eraya cusub la kulantaa dadka ay kugu dhahaan. haddii si gooni u labisatid waxaa lagu leeyahay hebel iska dhigaya. haddii aad gardaysatid waxaa lagu leeyahay garka waxaa waaye waa ku fool xun tahay, sidaan ku tahay. meeqa qof ay dhahday garka haddaad haysid qaab daro ku tahay, garkaaga gar qurxan ma aha, garkaaga sidaan ma aha. micnaheedu tusaale ahaan ka soo qaadanaya, haddii aad dumar tahay marka xijaaban tahay aad xijaabatid, saaxiibada maxay kugu dhahaan, dadka aan muslimka sidaan ma ku qurxanid, sidaan ma ku qurxanid. meeqa maalin TV ka aragtaa dadka criticize gareynaya dadka kale oo dhahay sidaan waa sidaan. adiga waxaa la rabaa marka inaad waxaas dhan dhagoola ka noqotid oo aadan u joojinin waxay dadka kale ka aaminsan yihiin, aadan ka fikirin, marna niyadaada aadan siinin. haddii aad waa ka fikiraa dhahayd oo raaligelinta dadka aad raaligelaysid, waxaa waaye meel ma tagaysid, weligaan waxaa ahaanaysaa qof hadal noloshaada adiga ma lihid markaas qofaa kula leh. haddii aad ka fikirtid dadka kale waxay ku dhahayaan noloshaada waa lagu leeyahay. maqtaa ma ka wado inaa ku dhaho, ma ku dhahay banaanka aado khamri soo cabo, jidka istaago, yoolo dhaho nolosha anaa iskale leeyahay. noloshaada iskale ee waxaa jeceshahay samee, hana ka fikirin. waxay tahay aqbal ruuxa aad tahay. micnaheedu waxaa waaye aqbal adiga u sheeg nafsadaada inaad qof tahay. aqbal ruuxa aad tahay kood hore, niyadaada u sheeg inaad waxa aad tahay aadan lamid ahayn Kim Kardashian iyo Beyonce iyo waxaas aadan lamid ahayn. in adiga aad tahay qof gooni ilaahay si gooni u sameeyay, qorshe goonina loo sameeyay. ma tihid qof macnaheedu dadkaas oo wixii loo sameeyay adiga waxaa lagu sameeyay si gooni wax gooni inaad qabatid, inaad dadka ka duwanaatid. mise qof aan dhaqaan hadda
ninkii maxaa la dhahaa soo saaray mobiladan ay isticmaalaan Apple-ka ninkii dhintay muxuu ahaa magaciisa Steve Jobs markuu programkan uu bilaaway waa meeqa shaqo laga ceeriyay oo loo diiday computerkiisa ugu horeeyay uu soo saaray waxaa lagu dhahay waxaan wax meel tagay maaha iskala tag hadduu maalinkaa tilaabada gadaal u qaadi lahaa ninkaa ka waran ma kula tahay inaa maanta Apple uu jiri lahaa mobiladan iPhone-ka ay jiri lahayn ma jiri lahayn soo marka waxaa ku dhihi lahaa iska daa dadka warkooda ha dhegeysanin aqbal ruuxa aad tahay meeqa mara qofku ugu dhex waa buuran tahay waa ciilan tahay oo ama qof caataa tahay iskiiniya tahay meeqa mara maqal dadku dhahayaan way badan tahay soo hadda quruxda ma aha dadka kale waxay ka aaminsan yihiin quruxda waxa adiga iska aaminsan tahay jimka inta joog maalin walba qofku wuxuu ka sheekeeyaa maxaa la dhahaa in hebel u ekaada rabo khaasatan dhalinyarta waxaa maqlaysaa qofku dhahay waxaa rabaa Simeon Panda nin la dhaho inuu ekaado qofku wuxuu ku leeyahay hebel inuu ekaada rabo qofka hebel inuu ekaada rabo qofkaas jirkiisa si gooniya loo sameeyay adiga qofkaas uma ekaan karaysid waxaa ku dhahayaa adiga ruuxa ahaaw jirkaaga sidii loogu talagalay sameey dumarka sidoo kale khaasatan makeup ka kacsan magaalka haddii aan makeup-ka heblaay u ekeen ama hebel u ekeen waxa lagu leeyahay makeup-ka wax jira ma aha eyelash ma laha kan indhaha sida ahayn wax uma eka ma fiicna ayaa lagu leeyahay soo marka waxaa ku dhihi lahaa quruxda waxa adiga iska aaminsan tahay waa dadka waxay ka aaminsan yihiin ma aha midda afraad midda ugu dambeysa waxa waaye hala tartamin dadka kale hala tartamin markaa ku dhahay ma ka wadi macnaheedu guul harajeen number 1 ha u dagaalamin taas ma ka wadi macnaheedu inaadan qofkan wuxuu u sameynayo oo inaad waxaas oo kale samaysid hadda isdhaahid qofkan maanta waxaas u sameynaya samee dhalinyaro badan aad aqaana trainingka gymka waxay isku diraan cirbadaha steroidka haddii aan maanta dhaho okay heblow isku diraa cirbada anoo isku diraya macnaheedu waxa sameynaya qofka wuxuu sameynaya ma aha aniga waxa aaraw inaan sameeyo waxa adiga aarabtid ayaa mar walba muhiim ah dadka kale wax aarawan muhiim ah marka waxa waaye hala tartamin dadka wixii wanaagsan ku tartan horumarka noloshaada ku tartan waxbarashadaada ku tartan shaqadaada ku tartan wixii noloshaada wuxuu taraya marka kula tartan qofka kale laakiin wixii kale oo negative ha ku tartamin dhalinyarta axad walba ama sabti walba party ayaa la aadaa weekend party ayaa la aadaa waa la xafladeeyaan ka waran haddaad ahayd okay hebel waa xafladu jira waa xaflada aadaya ma kula tahay inaa waxaas noloshaada soo kordhinaya waa no ma kula tahay inaa qofkaas beri party markuu ku yimaado uu faraxsan yahay ma faraxsan habeenkaas intuu xaflada ku jiro uu faraxsan yahay inta la boodboodayo uu faraxsan yahay inta khamriga la cawayo waa la faraxsan yahay laakiin aroortii markii sidaa usoo dhamaato maalinta ku xigta asiga waa qof ugu horeeya tuugsanaya oo lacag ku weydiinaya oo lacagta xalaal isticmaalaya waxaa wax ku cunaysiin kartaa oo saana ah waa dadka ugu horeeya lacagta ku weydiinaya beri markay soo kacaan ama beri markay soo kacaan shalaayada bilaabaya haddaa iska dhaafi lahaa ka waran haddaa lacagteeda wax kale isticmaal lahaa ka waran marka waxaa ku dhihi lahaa hala tartamin waxyaalaha wanaagsan ku tartan waxyaalaha xun ku tartamin so videogan intaas ayuu ku egyahay channelka haddaa ku cusub tahay please subscribe asxaabta la wadaag channelkayga kale haddaadan aqoonin waa Abdi Wahab Fitness asna subscribe fitness wixii ku saabsan xagga ayaa ka helaysa peace out